markii Zahra ay bilowday xirfadeeda kombiyuutarka sanadkii 2006 waxa ay la kulantay caqabado badan saaxiibadeeda iyo qaar ka mid ah dadka ay taqaanay kuma aysan farxin aniga Soomaaliya marka imaanay 2006 bulshada waxay u arkayeen qof wareersan oo waxaan ay ahayn inay gasho xataa aniga la igu yimid kambanigayga xafiiskiisa oo i weydiiyay waxaan ilaa meequu sii jiri karaa bil iyo labo ma ahayno inay iska gado maanta alxamdulillah meesha aan joogno adinka marxaatiga muhiimada ma aha ina adiga adab iyo hanti iyo aaleedahay laakiin ina adiga waxa taqaano oo wax ka qaban karto niyadna u hayso sameyn kartid waxa soo dhanna waxa ku horeeyay intaana jaamacada aanan galin yaa aniga ku fikiraya sidee tiknoolajiyadan aan qayb uga noqon karaa Zahra waxa ay leedahay shirkadda Sostec oo ka shaqeysa soo saaridda barnaamijyada telefoonada iyo software haddana waxa ay ku dadaalaysaa sidii ay dhalinyarada ugu dhiirigelin lahayd in ay bartaan tiknoolajiyada waxay aaminsan tahay in Soomaaliya ay u baahan tahay la qabsiga isbeddelka tiknoolajiyada caalamka ama ay ka hari karto dalalka dariska la ah tiknoolajiyada qof kasta ninka baadiyaha joogo yaa u baahan hadda shirkado badan oo waxa jira soo weydiina mesela waxay ku leeyihiin waxaan u baahanahay in loo bedelo xabagtii aan soo dhoofino in loo bedelo system problemiska haysto oo dhanka tiknoolajiyada ka haysto gaar ahaan ecosystemska wax la yiraahdo softwareada ay ku maareyn lahaayeen noloshooda ganacsiyadooda xisaabaadkooda haday ahaan lahayn mobile applicationska haday ahaan lahayn in digitalka ay ku biiraan sida lagu sheegay cilmi baaris la sameeyay sanadkii 2007 11263 arday ee jaamacadaha Soomaaliya ka qalin jabiyay 3 meelood hal meel oo kamid ah ayaa dumar aha dhanka kombiyuutarada iyo isgaarsiinta dumarka ka qalin jabiyay 9% oo kaliya ay ahaayeen kuwaas oo badankoodu ay ku adkaatay inay shaqo helaan balse gabdho badan ayaa wali jecel inay guul ka gaaraan dhanka tiknoolajiyada gabdhaha way ku yar yihiin IT waxa u maleynaa sababahaas waxa keenaya in la dhiirigelin la'aan iyo inaan lagu taageerin barashada IT-ga iyo midda kale oo ah in laga dhacsiyo gabdhaha ma barakartiin oo industry u gooni ah raga sababahaas u maleynaa runtii waxa ay aaminsanahay in loogu talagalay dumarka loogu talagalay industry-gan sababtoo su'aale marka u soo qaadanayo kale waa macnaha waxa ka shaqeyn kartaa shaqo ee noqoto oo kale guriga ka shaqeyn kartaa gabadha maama ee noqoto oo kale guriga ay joogto gurigeeda dhexdeeda shaqo ka abuuran kartaa iyadoo by online ku shaqeysanaysa iyadoo Soomaaliya wali ay ka soo kabsanayso colaadaha dawladda waxa ay miisaaniyada ugu badan ku bixisaa dhanka amniga dhanka tiknoolajiyadana wali maalgelin laguma sameyn si kastaba Zahra waxa ay ku kalsoon tahay in dhalinyarada gaar ahaan haweenka ay qayb ka noqon karaan isbeddelka dhanka tiknoolajiyada Soomaaliya ee mustaqbalka